waxaana wanaagsan gabi ahaantiin badawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda ahaadaan oo kale ka daawataan channelka Gobson TV qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya cali dheere oo sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhabeeyay ereyga Soomaali heshiisa ma dhabbaa in al-shabaab wada hadal iyo heshiis oo gol yihiin xoga hoose oo laga helayo ayaana kula wadaagi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale booqasho ku tagaya wadanka Eritrea iyo xoga laga helayo wadanka Eritrea oo sheegaya in ciidamada Eritrea ku maqan ee dalka dib loogu soo celinayo maleeshiyaad la wareegay garoon diyaaradeed oo ku yaala Galmudug iyo dawladda oo soo bandhigtay bogog hor leh oo saacadihii ugu dambeeyay laga xiray kooxda al-shabaab ayna ku lahaayeen baraha bulshada qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena balse intaanu guda galin faahfaahinta qodobadaasi daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan halkan ku baahinaa xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan waa maalinimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha 11 November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan dawladda ayaa sheegtay in ay xirtay bogog hor leh oo ay kooxda al-shabaab ku lahaayeen baraha bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya guul weyn ka gaartay dagaalka dhanka baraha bulshada oo ay kula jirto kooxda al-shabaab wasiir Al-Cadaala ayaa sheegay in dawladdu ay ku guuleysatay inay xirto ilaa iyo 500 oo bogoga oo ay kooxdu ku lahayd baraha bulshada sida Facebook, Twitter-ka, Telegram-ka iyo sidoo kale TikTok-ga wuxuu sidoo kale u mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed ee xogta la soo wadaagay isagoo tilmaamay in dagaalka iyo howlgalku uu sii socon doono guushuna ay dhowdahay dhanka kaleetana wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta maleeshiyaad beeleed ay la wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee degmada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolkaasi maleeshiyaadkan oo wata hub iyo gaadiid dagaal ayaa gudaha u galay garoonka waxayna joojiyeen shaqadii ka socotay halkaasi iyo duulimaadyada garoonka Caabud Waaq wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka qabsaday garoonka ay ka soo horjeedaan habka loo qaybiyay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Caabud Waaq oo haatan qaarkood la soo doortay waxaana maleeshiyaadkan ay ku doodeen in aan wali la siinin saamigii ay ku lahaayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkan ay dib u soo celiyeen diyaarad siday mas'uuliyiin iyo sidoo kale odayaal ku sii jeeday degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud waxaana haatan xaaladdu tahay mid aad u kacsan maleeshiyaadkan ayaa sidoo kale wacad ku maray in aysan furi doonin garoonka ilaa laga xalinayo tabashadooda ku aadan dhismaha golaha deegaanka ee degmada Caabud Waaq dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada iyo sidoo kale madaxda sare ee dawlad goboleedka Galmudug oo ku aadan xiisada ka taagan halkaasi si kastaba maalmihii u dambeeyay ayaa waxa degmada Caabud Waaq ka taagneed cabasho la xiriirta dhismaha golaha deegaanka taasi oo timid markii la kala diray maamulkii degmada Caabud Waaq kadib amar ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug dhanka kale tana madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa in ay toddobaadkan gudihiisa booqasho rasmi ah ku tagaan magaalada Asmara ee caasimadda u ah wadanka Eritrea sargaal ka tirsan fil Soomaaliya ayaa xaqiijiyay socdaalka madaxweynaha uu ku aadayay Eritrea balse ma bixin faahfaahin dheeriya oo ku saabsan ujeedka safarkaasi
warar la helaya ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in madaxweynuhu uu kulamo kala duwan la qaadan doono dhigiisa ee waddanka Eritrea Siyaas Afwerki isagoo kala hadli doona xaaladda ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalkiisa iyo sidii dib loogu soo celin lahaa dalkooda. sidoo kale labada hogaamiye ayaa kulankooda diiradda ku saari doona arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dal gaar ahaan xoojinta xiriirka Asmara iyo sidoo kale Muqdisho. booqashadan ayaa noqonaysa tii labaad ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku tagayo waddanka Eritrea oo horay ee safar ugu tagay xilli ay taagneed xiisad ee ka dhalatay ciidanka ee ku maqan ee waddanka Eritrea halkaasina ee tababarka u jiray. si kastaba madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan ku sugan dalka Masar halkaasi oo kaga qayb galayo furitaanka shirka caalamiga ah ee looga hadlayo cimilada adduunka. daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade waxaan ka codsanayaa in aad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba daawade waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbin xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa. wixii aragtidaada iyo fikirkaaga waxaa noogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga haddii ay yihiin kuwa wax badan ka bedelaya bulshada Soomaaliyeed iyo xaaladda dalka ka jirta. waxaan ka sameyn doonaa barnaamijyo aan halkan ku baahino.